الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ولماذا أيها هنتي موضوعي لنعيديسي كالدونا لما يستيري أنه كلمة داس قدام بيضوش محمد أيام وحي الرعسين أيام وكسابسا ليغ مسلم كا دادين تيسا عقوبات كدلانية. الله سبحانه وتعالى ضدك مؤمنين تهو ناديي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إلهي مؤمنين تهو أمري إن أي الله كبقان نفو البانا أي كفير ستو عملك أي مانتا سمينيدو وبرق قيامي ay u hormarinaydo qofka muuminka waxa uu sameeyo waxa ka dhalana waa inuu fiiriyaa dadka muslimiinta layntooda waxa ka dhalanayda aathar ama raad xun oo qofka shakhsiyadiisa adduun iyo aakhira ku gaar ah iyo mid guud oo muslimiinta dhan dib adduunka uga soo laabanaya. nabigeena subhan sallallahu alayhi wasallam حديث لغوريي إمام مسلم صحيحي سكوسو ساري نبينا صوبان صلى الله عليه وسلم صدح الرماد وهبين إلهي كبريي وحاكمت الله يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم إلهي وإنا وحن كبريي النبي صلى الله عليه وسلم إن أن إلهي أمد مسلم كاكوصلدين cadow aan muslim ahayn oo gaala ah oo markaas banaysta ummaddu waxay weerdiyeysanayeen ee diinkoodii naftoodii maalkoodii iyo sharaftoodii wixii ummaddu ay weerdiyeysanayday in aan ilaahay ku sallidin cadow banaysta. nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam rabbul caalamiin waa iga aqbalo wuxuu yidhi ma ku sallidayo cadow oo banaysta baydadooda walow hadduu raba cadowgaasu ha iskaga yimaado jihooyinka dhulka dhammaan ma dhici karto ummad muslim ah midaysan meel ku sugan cadow meel kale ka yimid inuu ayaga dhan cirib gooyo. laakiin wuxuu ku xiray shardi waxay tahay in aan ayagu islayn xataa yakuuna bacduhum يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. arrintaas qaayo wuxuu uga dhigay waa inaan gabalkood gabalka kale halaagin oo dilin gabalkood gabalka kale uusan qafaalan. hadday dhacdo in ayaga muslimiinta ah ay islaayaan oo dad muslim ah ay muslimiintii kale laayaan ama ay qafaashaan waxaa imaanaya in ilaahay ku sallido cadow kale oo meel kale ka yimid oo baabi'iya wixii ay ummaddu weerdiyeysanayday oo diin ah oo naf ah oo maal ah oo sharaf ahna banaysta. idan waa in uu ku xisaabtamaa maadaama ilaahayna amray inaan isxisaabinno intuusanna xisaabin. qof kasta oo muslim ah waa inuu ku xisaabtamaa laynta dadka muslimka ah waxa ka dhalanaya. waxaad ogaataa qofkaaga muslimka ah ee waxaan sameeyey ama ku fakeraya maxaa ka dhalanaya. waxaa ka dhalanaya shantii aayadda Allah ku sheegay aday ku gaarta oo ilaah inuu jahannamo ku geliyo oo aad ku waarto oo cara alle kugu dhacdo ilaahayna naxariista ka durjiyo cadaab weyna ku diyaarsado. waxaa ku gaar ah sayi'ada qofku marka uu sameeyo waxaa shu'migeeda ka mid ah sayi'adaasu inay u sabab noqoto inuu dembi kale ku dhaco. qofku markuu dhiig muslim ku dhaco ee koobaad berri wuxuu ku dhacaa kii mid ka xun hadduusan toobad keenin. marka adduunka ka fogaansho alle iyo in ay kula fududaato macaasida oo ilaa marka dambe aad samaydo wax aan la suuray karin qof ilaah rumaysan inuu sameeyo taasaad adduunka ku gaaraysaa.
aakhirana waa midda ay ka dhalanaydo shanta aayadu sheegtay waxa kaleeto oo xadiiska nabigu noogu sheegay sallallahu alayhi wasallam nabiga oo aan iska hadlayn ee wuxuu ku hadlayaa waxyi ay yihiin mar hadday dhacdo muslimiinta in dadka mid uu muslimkii kale baabi'iyaan waxaa ka dhasha oo raad ah oo ummadda muslimka ku dhaca ummada acdaa ku ah oo ummadan diinkooda cadow ku ah oo naftooda cadow ku ah oo dawladnimadooda cadow ku ah oo jiritaankooda cadow ku ah inay soo aadaan oo ay sabab ka dhigtaan oo ay diintooda baabi'iyaan oo ay maalkooda baabi'iyaan oo ay naftooda baabi'iyaan oo ay irdigooda baabi'iyaan waxay raadkaasu ka dhashay uu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam isbaabi'inta haddaba walaalle marka ay timaado taas ee ummadan acdaa kala duwan ee danale ay dhinacyada ka soo galaan adigana aad sabab u tahay nabi maxamedna uu yiri sallallahu alayhi wasallam waman sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm alqiyamah qofka dariiqa xun bilaaba dariiqadaas inta uga dayata iyo waxa ka dhasha waa isaga dushiisa ilaa qiyaamo laga gaarayo dhammaan waxa acdaadu ay ku sameeydo ummadda in dushaada ay tahay waa inaad ku xisaabtantaa oo ay camalkaagi ka dhalatay bal suurayso ilaahay wajigiisa adoo taagan oo aan koox kula socon oo aan qabiil kula socon ee lagu soo maxkamadeeyay boqol qof ee muslimiin ee saaka salaadii subax tukatay ee socota ee meeydii adigu aad dishay bal suurayso adoo qaawan oo cagacado wajiga alle taagan oo lagu soo maxkamadeeyay 150 500 400 oo dhaawac ah oo ilaahay wajigiisa la rabbiyo weydii bal wuxuu igu dilay ama aan ka haystay bal suurayso marka dadka dan leedahay oo qof dan le aad tahay oo rabbi dan ka leedahay oo doonayda adduunka alle inuu ku gargaaro ama aakhira uu ku gargaaro waa loo gargaaraa masaakiinta lama laayo nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhigi jiray raadiya ducafada fa inna ma tunsaruna wa turzaquna biducafaikum wax kale ilaahay kuma gargaaro laynu kuma risaaqo waxa kaliyo laynu kugu gargaaraa oo laynu ku risaaqa dadka ducafada ah in la gacan qabto in la quudiyo saasa lagu gargaaraa dan maleedahay izza marabta u gargaar muslimiinta naftooda ilaali maalkooda ilaali sharaftooda ilaali kooda baahan quudi hadilin ha argagixin hana dilin subhanallah miyadan ilaahay dan kala hayn soo qabri iyo qiyaama marumaysnid bal waxaad ku xisaabtantaa nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam hadiiski bukhari iyo qeyrkiis ee markuu mucaad dirayay wattaqi da'wat al-madlum fa innahu laysa baynaha wa bayna la hijab wuxuu ku yiri qofka laga gardaran yahay habaarkiisa iska ilaali maxaa yeelay qofka laga gardaran yahay habaarkiisa iyo alle waxba uma dhaxeeyaan ilaah wuxuu leeyahay la'ansuranaka walaw ba'da hin waan ku gargaaraya waqti kadib aan noqotee waxaad suuraysataa bal boqolaal masaakiin ah ee agoon ah ee qofkii u shaqaynayay saaka ama asagoo shaxaad doona ama wax kale oo la mid ah nolol ka raadinayay wax hantiyo raasumaal aan lahayn saaka ay waayeen caawa agoontaas markaad adigu hurdaydo 9 saac ee rabbi leeyahay man yad'uni fa astajiba lah man yastaghfiruni fa aghfir lah man yad'uni fa astajiba lah man yad'uni فاستجيب الله من يسألني فأعطيه من يستغفرني فاغفر له مركو ربنا يهي الضوامضة صوتان أيريهن إلهي وحنا لكو قلي من نقاني نقاقبو محاد سويدا لما أنتو أبو وقورين إيسا أيقنا انت إلهي السجودان أيريهن إله وحنا الكدر من نقان انتاس أغوها اسكو صهرتان نهي إلهو نوغا قرقار محاد ملايسان إذا maxaad malaysanaydaa hooyadii caruurkeeda wax ku bartay sheeh ay gaddo iyo aana ay wareejiday ee dugsare ka saartay jaamacad u dhiganayay ee hilbihiis loo keenay naftu qaarka hore uga jirto intuu nool yahay ulay saaran ah maalintay sugayda ayada inuu wax u taro maalintaas hooyadaas gacmaha taagto ee ay leedahay allow ii gargaar maxaad ilaahay agtiisa ka sugayda
adduunka ma waadan dan ka lahayn aakhira ma waadan dan ka lahayn rabbi aan ka baqno oo dadka muslimiinta qofka qabri iyo qiyaamo rumaysano war dadka dhiigooda badbaadi oo naftooda badbaadi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waxaan kalimadayda ku qatimayaa laba kalimo dhammaan dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed xeelad iyo xoog oo dhibka la iskaga rafciyo waa naga dhamaaday waa inaan ilaahay u tadarrucno oo qof walba sujuud ilaahay ku bariyo ilaahay inuu naga rafciyo cadaabka waa cadaab waxaanuye ilaahana amraha le ud'uuni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ilaahay ibariyu leeyahay ballankana kama baxo waa in ka aqbalahu leeyahay marka ilaahay wa inaan si tadarruc leh qof walba isagoo kaligiisa khaasatan adinka iyo aqinka dhexdiisa iyo waqtiga saqada dhexe sujuuda ilaahay aan ugu tadarrucno ilaahay inuu cadaabka naga qaado iyo culayska nasaara qodobkaas qof walba waa inuu kaligiis ilaahay u sheegto si ilaahay culayska nooga qaado ballan weeye ilaahay ballankan alla kama baxo taas waa kelimada koobaad waa inaan ogaano inaan faraj kala jirin kelimada ugu dambayda kelimadii Sheekh Axmed Yaraan ku sii ayida oo ah xaaladda noocaas dadka dhibkaas ku dhacay dad ka faa'iideysanay oo raba in ay ummadda qadka ka silumiyaan oo ilaahay ka sii fogeeyaan oo ay leeyihiin shirkiga iyo bidcada markii makhluuqa la bariyo adibka laga bixi jiray ee dadka waxa dhibka u keenaya ilaahay kaliya hal la bariyo ilaahay kaliya hal la bariyo wartaasu sax miya ilaahay wayna aan ka cabsano nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ida sa'alta fas'alillah markaad wax weydiisaydo allah weydiiso وإذا استعنت فاستعن بالله حتى كلمة ضلبيض الله كلمة كالضلب واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك أقول حتى مخلوق ودنكل ما إلي وحكو ترانكم الطريقنا وحن ألا كو قرين حتى يقول ما إلي كدبانكم الطريقنا وحن ألا كو قرين مخلوق إنا إرسطو أو أدقرقار كالضلبتا وحوب عارو ساسو كلي يا ربي marka war ummadda yaan laga leexin qadkooda qadka oo ah ilaahay ku xirma ilaahay aan u leexano ilaahay wajigiisa kalimadan la taaganahay salaada oo ah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ilaahu kaliga aan ku caabudayna kaliga aan kaalma ka dalbayna yaana ka leexan ayadaan ku dhimanno bulshooyin ilaah ku dhimanno marka labadaas kalimaan ku qatimaya إلهي أسماء الصفات سبحانه وبرينا عذابك إنه نقض القاضي إلهي أسماء الصفات سبحانه وبرينا إلهي أنت لما تنمون حريستو أنت داو عنا أو عافيو أنت أغنت إلهي أوكبو كوا قراب كان إلهي أوكبو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد